lugaha cagaha iyo faraha ayaa laga jajabiyaa taasoo ayada u ah sumcad iyo sharaf kana dhigan inaysan ahayn gabar wareeg badan muran badan balse ah gabar u diyaarsan in la guursado oo isqurxisay dhaqankani wuxuu qarniyo badan ka jiri jiray wadankaasi China waxaana gabdhaha markii ay guurka diyaar u yihiin ay sameyn jireen in faraha laga jajabiyo oo markaasi bash la siiyo sidoo kale cagta la jabiyo si ay lugtu u noqoto mid isku laaban markaas kadib ayaa waxa la sameyn jiray mara ayaa lagu duuduubi jiray si ay markaasi sidaas ugu reestaan oo faraha qaabkaasi isku laaban ay noqon jireen waxa sidaan ku suntanaa dadka lacagta leh qaar kamida boqortooyooyinkii soo maray ayaa dhaqankani dhiiro gelin jiray oo gabadha lama guursan jirin ilaa ay quruxdaas iyo qaabkaas lugaheeda ay ka noqdaan haweeneydan oo kamida kuwa markaasi soo maray dhaqankan ayaa ka sheekeynaysa markaasi dhibaatada ay ilmaheedu u mari jireen in la guursado taas oo ay sheegtay inay sameey jirtay sidan oo walina ay u taqaano in ay qurux yihiin laakiin run ahaantii arintani waa naafo oo dad badan ayaa u naafoobay barashada dhaqan aan kaaga ahayn wuxuu ka saacidayaa inaad ogaato in dhaqankaagu yahay kan ugu fiican dunida dhibaatooyin badan ayaa quruxda loo maraa kasto aan laga sinayn sida ay quruxdu tahay haddaba qaabkan gabdhuhu waxay u ahayd qurux dadkuna waxay u arkayeen qurux balse waa naafo caadi ah oo aad arkayso oo qofku uu ku adkaan doonto inuu socdo daawade sideed u aragtaa arrinkan haddii ka waran sidana quruxda loo aqoon lahaa maxaad sameyn lahayd muuqaalkeeni jimcaha daawadayaal waa naga intaa